Xildhibanada Golaha Deganka Degmada Laascnod ayaa maanta kulan ku yeeshay howlka dowladda hoose Degmada Laascnod iyagoona ka jawaab celiyay shir xagaayada ay dhawaan qabteen qaar kamid ah ganacsatada iyo qurba joogta u dhalatay gobolka Sool iyadoona xildhibanadu ay eedeeyeen qaar kamid ah ganacsatada iyo habkii loo soo agaasimay shir xagaayadkaasi mar ay la hadlayeen saxaafadana waxa hadalladooda kamid ahaa waxaa jirta shir aan maamulka gobolka iyo ka degmada aan santoona oo waxba ka ogeyn qaybaha security ayna waxba ka ogeyn lagu qabtay jaamac howlka mustaqbal waxa weeye shirkaasi in ma aha dad gooni isu mahadnaqaan iscajabiyaan ummadana ay waxba u soo bandhigin kama yeelayno dadka teetalka sheegtay waxaan miidiyaha ka maqleeyay qaar sheeganayay golo deegaan qaar iskaga mahad celinayay gudoomiyaha ganacsatada maanta laga bilaabo oo 12 bishii 2015 cidii gudoomiye ganacsi ah liisa sheeganaysa cidii guddo horumarineed ah waa in xafiiska dawladda hoose iska soo diiwaan geliyaan cidna sharciga loo daba fariisan maayo Laascnod maanta la khasaareyn maayo ka yeeli mayno waxaan leenahay ummadda ka xishooda ilaahayna ka xishooda markii koobaad waa idin dignay markii labaad waa idin dignay marka saddexaad waxa tagi doonta inaanu miidiyahana magacyadiina ka sheegno waxa weeye ummadan idin horkeeno warintan idin fadeexadayn ummadda ka xishooda maanta awoodda shacabka talinaysa oo aan ku shaqeynaynaa aqliga shacabkaanu ku shaqeynaynaa qof gooniya xilliga uu naga faqi jiray iyo qof gooniya cidii dan gooniya lahaan jirtay way dhamaatay qurba joogta waxaan leeyahay waxa weeye gobolkan wuxuu idin ka baahan yahay horumar wuxuu idin ka baahan yahay inaad ummadda caafimaad ka qayb qaadataan waxbarashada ka qayb qaadataan wax kasta oo degmada ka qayb qaadataan laakiin ka daaya dariiqyadii hore aanu ka soo duweynay inaad shirkan xagaaga aad ku qabateen Laascnod waxa fiicnay gudoomiyihii golaha deegaanka iyo golihii deegaanka wada jooga xitaa cid kale kuma yeedan marti qaadan aad iyo aad bay nolol falcunta arrintaas waxaad moodaa inay xaqiraad soo waxaan u mahadnaqayaa hal gabadh kaliya ka hadashay qabadka magaalada laakiin raggiina ganacsatada ahaa ee magaalada joogay ee xaadirka ahaa nin kaliya xusay wax qabadkan magaalada ka wadnaa ma jiro waxaan idin sheegaynaa maantii dhawaato imaatinkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu afkiisa ka furay waxa ilaahay ma hadii mar hadii Laascnod gudaheeda maanta ku dhaxal goynayna ma hadda ilaahay ku sugo wax iskale arinta soo jiidashada leh ee ay qabteen maayarka cusub aan dooranay iyo golihiisa deegaanku bilicda iyo wax qabadka ay magaalada ka qabteen ayaa koos gareysay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhaxal gooyay golihiisa wasiiradu waxa jirta dad aan ahayn dadka kamid ahayn degmada oo yimi oo sheegtay waxay qabteen cidii wax qabatay way cadda hadaad sheegatid in waxaadan qabanna waxa imanaysaa in de xaqiiqday tagaysaa looma baahna in shir saxaafadeed lagu qabto degmada Laascnod keeni kara amni darro cidii waxaan la isla ogeyn sheegtaa waxay ka shaqaysaa amni darro waxaana laga qaadayaa talaabo sharci ah arintooda waafaqsan waxa weeye bahdan leeyahay xil guntada ciidamada dirin yaan degmana ka diiwaan gashnay gobolna shaqo ku lahayn ee xilalka iska sheeganaya ee dawladaha sheeganaya ah in dhinac yaala wax qabadkii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda hoose ay qabteen sheeganaya high school keeneen waxay qabteen haday wax qabanayaan wala la qabanayaa si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli horumarina kala duwan ay ka socdaan gudaha magaalada Laascnod iyadoona khilaafkan dawladda hoose iyo qaar kamid ah ganacsatada uu yahay shir ay dhawaan qabteen qaybo kamid ah ganacsatada iyo qurba joogta u dhalatay gobolka Sool iyagoona ay kaga hadleen horumarina kala duwan oo ka socda gudaha magaalada Laascnod Mohamed Ahmed jaamac telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Laascnod